afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland mudane Xuseen Deer ayaa waxaan kula kulannay magaalada Berbera iyada oo maalmihii ugu dambeeyay sidaad wararka ku hayseen magaalada Berbera la sheegayay in dekada magaaladaasi 19% ay leedahay dawladda Ethiopia sidoo kale saasi uu sheegay wasiirka wasaaradda ganacsiga isagoo waramaya idaacada caalamiga haddaba 19ka la sheegay in dawladda Ethiopia leedahay heshiiskii baarlamaanku ansixiyay kuma cadeyn 160 DB walna laguma cadeyn 130 dawladda Soomaaliland laguma cadeyn halkeebay ka yimaadeen 19% ee la siiyay dawladda Ethiopia Soomaaliland baa siisay mise DB wal baa siisay xagga ka keenteen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين محمد عبد الشيخ هذا ما تصلتهاي قب جوج بعض هاي حفلة دي بي ويل كل وريق سياسي رسمية مرصد عالمي بربرة ورئيسك وسير كمان دقيسي وسير كمو ورنين دولة الصومال الآن أيا بقول كي بس قاليه طبعا سياسي إثيوبيا وسير كحيري دولة إثيوبيا وحلا هاي بقول كي بس قاليه طبعا سويدين واحد تياسي شركة عالمية دي بي ويل وحويان سامية بدن بايلة بقول كيف شيء اللي إحنا يدعله بقول كيف شيء صدقنا قرن كسومال لام باله برلمان كنا تاسو أنسحية هالشيء كلا بدر لنا عنا وحكو قرن عد سامية بدن له أما عد والبا هدي أي دون يسوي سامية وده عد كلا أي سيسو ويوم الله حبنا أنت بجارهان قلنا له شير هولدر ماجورتي قال ساسترادت إثيوبيا dekada Berbera alaabta ugu faraha badan leh waxa kala degta ama kala soo degi doonta dawladdan walaalana Ethiopia waxa weeyaan dawlad jaarkeena waa dawlad wax badan naga dhaxeeyaan iskaashi dhaqaale kuwa nabadgelyo qayb guud ahaan hadii ay alaabada Ethiopia oo dhan meesha soo marayso waxay noqonaysaa Ethiopia lafteedu inay danaheedii iyo maslaxadaheedu meesha ay ku jiraan ay dhinac si doonto ay u marto saas daraadeed marka su'aashaada ku soo noqday maxamedow 19% dawladda Ethiopia leedahay maaha dawladda Soomaaliland qaranka Soomaaliland 35% aynu lahayn 16 baa inoo soo haray oo 19 Ethiopia nasin DB Well way u madax banaanta in shirkadda dawladda Ethiopia ay siiso ama ay ka iibiso saas daraadeed shirkadda weyne DB Well ayaa share-kan bixisay oo leh 19% taasoo dawladda Ethiopia ay ku wareejisay taasina xaq bay u leedahay way sharcigu baarlamaanku ansixiyay waddankana sharci baa kala wada sharciga la ansixiyay ma ku jirtaa in awoodda inta leegay wareejinta in dal kale ay shirkadii lagu wareejiyay dekadu bixisaa ay bixin karto xaq ma u leeyahay sharcigu ma qoraya sida baarlamaanku wuxuu ansixiyay heshiis draft oo labada dhinacay isla gaadhay MOU Memorandum of Understanding ayuu ansixiyay baarlamaanku Memorandum of Understanding ana waxa ku qoran heshiis labada dhinacay isla gaadheen hadii aad si fiican u akhrido cida shareholder-ka ee majority shareholder-ka ama saamiga inta badan leeyahay waxa weeye xaq waxay u leeyihiin inay saamiga ay inaga inala galeen maadaama ay yihiin dekada cida maal gelinaysa oo 442 milyan oo dollar ku maal gelinaysa saamigooga qaybta aniga igu soo hagaagta dadku waxbaan ka siin karaa macnaheedu ma hadda dekadii baa la wareejiyay sheerkii ay DB Well lahayd ahaa 65 ayuun bay 19 inta uga soo jirtay Ethiopia ay siisay taasina xaq bay u leeyihiin 16% la sheegay in Soomaaliland leedahay markii la qaybiyay DB Well 65 Ethiopia 19 Soomaaliland maxaa ka jiray waa hadal aan saliyo raatoona lahayn 16 iyo 19 markaas waa 35 Soomaaliland halkeedii buu yaalaa 65 DB Well lahayd ay 19% kan ay ka go'ayaan shirkadda DB Well ayaa iyadu waxay u aragtay maslaxadeeda iyo inay dekedan ballaarinteeda ay u baahan tahay cid wax kala soo degta Ethiopia waa 90 milyan bariga Afrika oo dhan dekada Berbera ay adeegi kartaa ilaa bartamaha Afrika ilaa South Sudan suuq geynta DB Well waxa ku xiran in hesho partner kale oo ay shirkada qayb ka siiso kaasina Ethiopia noqdo ma jira shirkado kale oo sida la sheegayo DB Well ay ka iibisay shirkii ay dekada Berbera ka qaadatay 65 marka laga tagay Ethiopia oo wararka ugu dambeeyna ay jiraan in la sheegayo in shirkado waaweyn oo caalami ay ka iibisay shirka kale oo ka Ethiopia u dhigmo maxamed wararkaas waa ku tiri ku taan dawlad ahaan
waxaba yaraateena loo soo tallaabo kasta oo DP World qaadayso waxa khasab ku ah inay qaranka Somaliland ay u soo sheegto sababtoo dalka inaga leh dekada inaga leh waynu kireynay maynaan wareejin dekada DP World baanu ka kireynay haddii aynu ka kireynayna qaranka asadkiisa iyo hantida uu lahaa cidna kuma inaan wareejin taa inaga ka mas'uula tallaabo kasta oo ay DP World qaadayso waxa khasaba inay inala socodsiiso sidaas daraadeed wararkaas maxamed waa ku tiri kuteena waxbana kama jiraan saddex qaybood ayuu ka kooban yahay cidda sheer ku leh marsada berbera waa DP World oo majority shareholderka oo sheerkeeda Ethiopia wax ka siisay iyo dawladda Somaliland oo 5% leh dhinaca saxda dawladda Ethiopia laakiin dawladda Ethiopia saxiixa kuma jirto sheerkii ay dawladda DP World lahayd ayuun bay qayb ku wareejisay laakiin labada wax wada saxiixday ee heshiiska wada galay waa DP World iyo qaranka Somaliland afayeen xukuumaddu miyay kala socotaa mise wada socotaa adu 19kii waxaad sheegtay in DP World leeday wasiirkuna wuxuu sheegay 19 dawladda Ethiopia leeday oo DP World aduguna aad siisay marka xukuumaddiina wada socon midinkaan isfahansanayd maxaa culayska inta leegay ku tirkuteenta inta la keenay bulshada waswaaska inta la geliyay horta xukuumaddeedu meel ku kala socota maanaan waxaan nahay one team one government and one president saas daraadeed hal madaxweyne iyo golo wasiir iyo xukuumad wada socoto way xukuumad kala socoto wax kala sheegtana maanaanay wasiirka ganacsigu Dr. Umar Shucayb muu oranin 19% baa laga jaray sheerkii qarankeenu lahaa oo la siiyay Ethiopia taama oran 19% buu yiri laakiin wasiirku waxa uu umaray inuu sii faahfaahiyo yira 19 kan waxay ka gooyaan sheerkii DP World lahayd